daawadayaal imikana waxaan gurigiisa ugu tagay si aan shahaado sharaftan u guddoonsiiyo gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarinta Somaliland ee kulliye Mujaahid Axmed Maxamuud Silaayo. gudoomiye Axmed Maxamuud waxaa run ahaantii uu ka mid yahay shakhsiyaadka ku jira buugayga la yiraahdo Hagarlaawe ee aan hakran mudadii aan dhaawacnaa ee 6 sano ahayd doorka lama ilaawaan ka qaatay ka qayb galay markii la diray dhakhtarkii Havana Hospital ee Harar ka qayb galay markii la diray isbitaalka Balcha Hospital ee Addis Ababa Hargeysa gudaheeda run ahaantii wax weyn oo aan qalin iyo waraaqtoona lagu soo koobi karin ila qabtay in yar haddaan dhalaanimadeedii dib ugu noqdo oon xuso waqtigii ugu horreeyay ee aan maqlo magaca gudoomiyaha ama magaca taaladan qaran ee aan maanta run ahaantii la joogo waxay ahayd sanadkii 1988 waxaan ahaa dhalinyaradii ku hadaaqi jirtay magaca uu dhacay Siyaad Silaayo dhalay. waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa ilaahay ugu simay inaan run ahaantii nolol ku soo gaadho oo run ahaantii weliba aan aqoon isu yeelano ayaan aad iyo aad ugu mahadinayaa. gudoomiyuhu saan horeba u soo sheegay halganka muddada dheer socday ee dhaawacayga 6 sanadood ahaa mar walba run ahaantii wuxuu ahaa shakhsiyaadka lama ilaawaanka ee garab taagan saan horeba saxaafadda iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ugu sheegay. run ahaantii gudoomiye Axmed Maxamuud waxaa ahaa gudoomiyihii ugu muddada dheeraa ee ururkii SNM waxaanu imika yahay run ahaantii hoggaankii ururkii SNM gudoomiyaashii soo maray shakhsiga kaliya ee ka nool. ilaahay waxaan ka baryaa inuu waqtiyo kale oo fara badan oo nagu simo oo run ahaantii hoggaaminta iyo hagidda qarankana uu ku simo run ahaantii hoggaamintiisa. ilaahay waxaan ka baryayaa in sidii wanaagsanayd ee xilkasnimada lahayd ee mas'uulnimada lahayd ee uga qayb qaatay qayb libaax iyo door lama ilaawaan uga ciyaaray run ahaantii qadiyada dhaawacayga muddadii dheeray ee labada qori ku boodayay waxaan ku dhaqaaliyay festivalkii taladii iyo tusaalihii dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo ololihii wiiga sameeyay inaan run ahaantii uga mahadnaqayo maanta halkan gudoomiye sharafka uu ka weyn yahay shahaadada aan ku guddoonsiiyo. run ahaantii waxaan kugu abaal gudo garan maayo nin taariikhda Soomaaliyeed caanka ah oo halagu rahan jiray oo raago ugaas la dhaqaaya dowladda ka jiray waxa uu raagayay lixaad waa badhaadhe budada markii aan ka jabiyay boqonka taagiisa uu habeenkii way badhan lahaa bahalkii cawlaay ragii buurta dheer igala baxay beerka koog soo ridi. lixaad waa badhaadhe haddii bogsado xoogu haddii bixiyaha ee bahay kay isugu beego abaal ba'ay abaal buray abaal badh iyo dheeraada ninbakiisa kaa lagu bedelay beerka koog soo raago ugaas oo qarnigii 18aad halabuurkii calaasriyaashii suugaanta Soomaaliyeed ka mid ahaa mowqifkii waa miisana mid la mid ah ee miisana gudoomiye waxaan naxariis la kaaga codsanaya oo si xushmad la kaaga codsanaya gudoomiye inaad iga guddoonto shahaado sharaf kan loo aad iyo aad الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أنت ربتي وحا فرحة وينية شعور أنا عبر كلام أبو باري من كان دليل رضا عبد الله إبراهيم وما تستشرف إيا قيمة له وقرتي إنه نقدسيه certificate iyo aqoonsi dadkii wax taray oo dhan waa calaamad aan dadka intiisa badan lagu aqoon ama aan lagu arag markay qof tahay ninka dhalinyarada ah oo isagoo xoog leh oo wali dhalinyaro ah laxaadkiisa kala dhataalmay وأن مرقورة هدنا شعورتيسي نيديسي درنكيسي ودرنمو كي حلش برشا كايستي مد تاريخيات كايستي هيبويك إلهي سيي مرول بسو بندقيي وقبايا عانا نقضي
oo hal abuur caana noqday oo wax kasta oo bulshadaa saameeya uu ka howlgeliyay. way yar yihiin bani aadmiga wax loo taraa wuu badan yahay, laakiin inta abaal gudda ama kaba fakirta wixii wax ku taray ama wax kuu geystay qiraal ama mahadnaq u gee, waa laga yaabaa inay yar yihiin. inay niyaddii qalbiga ka duceeyaan waa laga yaabaa. anigu shaksi ahaan runta markaan qiro, cabdillahi waa nin dhalinyaro ah waan aada iyo aada u jecelahay oo qiimeeyo waxtarka uu bulshada ugu fadhiyo iyo hal abuurkiisa, hibooyinka ilaahay siiyey iyo dadaalkiisa. anigu runta marka la sheego waxa ma tarin, magaciiyo sharaftunba igu daray, wadanimadu xusay. anigu shaksiyan inaan wax la jecelahay oo aan mar walba dareenkiisa iyo shucuurtiisa igu jirtay inaan kaa yare ilaahay hibooyinkii mawhibaha badan siiyey ee isagoo yar uu xooggiisii si ayaan darro u kala dhartaalmay. waan arkaya dareen badan iyo jacayl badan iyo niyad badan waan u hayay, hase yeeshee runtii wax la sheego oo qiimale ma aan tarin. waanan aad baan maanta ula yaabay markuu ii keenay certificate kan sharafta huwan. qofka shaacirka ama gabayaaga ama dareemada leh waxyaa badan baa la arkay inay dadka kaga duwan yihiin. dadka wax la taraa cid waliba waxay tartee ma yara, laakiin qof intuu ka fakero yidhaahda dadkii waxii taray iyo dadkii waxii qabtay iyo dadkii muxuu ahay ilaa hawl galay aan xuso oo abaalkooda gudub, wuxuu dhahda way yaryihiin. iyaga intooda badan xumaan ba ujeeda, inteeda badan caadiga naguma soo yaala dhacdo. taasina waxa weeye waa miisad ama wax muujinaya ama caddaynaya inuu ka duwan yahay dadka intooda kale, inuu intooda badan uu ka duwan yahay. marka hadalkoo kooban waxaan leeyahay ilaahay ha kula qabto, caafimaad buuxiya laxaadkaagana ha ku dhameeyo, cimri dheer ha ku siiyo, dalka iyo dadkana ha kuu daayo, hal abuurka ha kuu daayo, shucuurta iyo dareenkaa aada muujinayso ilaahay waxaanu ka baryaynaa in muddo badan dadkii ummaddeenu ay ka faa'iidaan. yaan ilaahay kaaga baryayaa. certificate-kan adii keentay ama waraaqdan aada siisay ee wanaagsanna waan xafidayaa, taarikhdeedaan uhaysanayaa, frame baan gelinayaa. kuwa kale ee sharafta leh ee sharaf halisiyan iyagana ku darayaa, meel wanaagsan waan ka gelinayaa. aada iyo aad baad umahadsan tahay. adigana waan kuusoo ducaynayaa, adiga reerkaaga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada iyo dalkeena iyo halgankaagaba ilaaha kula qabta cabdillah. allah yakhliik, allah yakhliik, allah yakhliik. sharaf badan.